بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وأنيقو حديدي oo maanta waxaan ku soo qaadanaa tan waa dekedda magaalada ummadda Soomaaliyeed ee Xamar qaybtaas waa taangiyada oo ka kooban 100 mid qaybtana waa qaybta culeyska qaybtaasna waa qaybta gargaarka degdega ah qaybtaasna waa qaybta dabdemiska runtii dekeddu aad u baaxad weyn tahay mashruucana wuxuu noqon doonaa mid mustaqbalka haddii fikirkan uu hirgalo shirkadda Ashraaq ee Turkiga haysata iyo wixii shirkado la mid ah kuwa muwaadiniinta Soomaalida ay sameystaan iyo qaybahan waa qaybaha kaydka iyo qaybta ammaanka qaybtana waa qaybta baroosinka oo kusoo xidhan lahaa markabku inkastoo dekeddu ay qaybta hoose xataa dhulka uu qashin ku jiro in la sameeyo iyadoo laftigeeda u baahan tahay laakiin dhismahan dhisme casri weeye kani waa wiishka ama wiishashkan wax lagu qaado oo ka kooban midkiiba inuu awood u leeyahay 100 tan inuu qaadi karo kadibna uu xagga dambe gadaal uu dhigi doono xamuulka markabka kala degay konteenarada halkana kuwan waa wiishashka kala yar kuwa ciida qaada kuwa waxyaabaha yaryar ee badan qaada iyo wax la mid ah marka kuwan waxa weeye 10 tan markabkan haddana ujeedaan wuxuu wadaa badeecada uu wado waxa weeye tan waa qaybtii hoose uu micnihii xarigiisa uu kasii deysanayay sida baroosinka iyo wax lamid ah markabkan badeecada wada wuxuu kusoo istaagayaa halkan waa markab aada u baaxad weyn badeecada uu wadana waxay u eg tahay badeeco aada u tiro badan marka meeshii xagga dambe space badan bay leedahay konteenarada aada u jeeda rasaysan marka hore baroosinka xidhanaya markuu xidho kadib konteenarada aada u jeedaan buu mindida soo qaadayaa xagga dambe u dhigayaa kadib waxaa qaadaya gaadiidka xamuulka waxaa qaadaysa forlift waa hagaajinaysaa waa rasaynaysaa marka aad rasayso kadib waxa weeye waxaa imaan doona gaadiidka xamuulka waxayna ku hagaajin doonaan goobta kaydka safarkuna hadduu sii socdo ama gaadiid baa qaadi doona ama tareen iyo wax lamid ah tani waa forlift waxay dhigaysaa xagga hore waxay usii dhiibaysaa wiishkaasina wuxuu u qaadi doonaa qaybta horena waa ku rasayn doonaa taasina waxa u yeelan doontaa nidaam waa wiishka magaciisa leedahay Straker waa 45 kan haddaba dib markuu uga soo noqdo qaybtan iyo qaybaha kale marka saa waxa ku rasaysan oo ku habaysan guud ahaanba konteenaradii xamuulka ahaa ee kaarkoogii iyo kuwii gudaha iyo kuwii dibadda intaba kan waa markab wada ciidaasina waxa uu qaadayaa uu saarayaa iskarogadaas ama saa u taqaanaa shamiito budo ah iskarogadaasa qaadaysa halkaasuu ka wadayaa marka wiishkana waxa uu adeegsanayaa kuwana waa baabuurta waaweyn oo waxa weeye ilkaafeega ama saa u taqaanaan candamaydlahan wuxuu wadaa konteenarka wuxuuna u qaadayaa goobtii loogu talagalay tani waa muqdisho port kusoo dhawow qaybtan waa qaybtii checkinka waa wixii sii galaya iyo kasoo baxaya intaba labada gaadiidba waa la hubinayaa si markaa wixii oo hubaal oo liigal ah oo lagu kalsoon yahay uu meesha u soo galo run ahaantii waa fikir aada wanaagsan waxaan filayaa daawadayaal in mashruucan insha allah haddii fikirkaas uu sii socdo tan iyo mid kasii ballaaranba la hirgelin doono assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulantii dambe xiisa waa hagaag qaybta xigtana waxaanu kusoo qaadan doonaa gegada caalamiga ee aadan cabdulla airport ee magaalada muqdisho gegadan caalamiga ee aadan cadde airport waxaa dib loo habeeyey dhowaan kadib markii socdaalkii uu hakaday sanadii 1991 waxaa dib habeyn lagu sameeyey sanadkii 2013 kadib markii hadda ay la wareegtay shirkad Turkiya oo dib habeyn ku sameysay socdaalada guud ee airportka diyaaradaha ka howlgala waxaa ka mid ah Dalo Airlines, Somali Airlines iyo Juba Airlines waxa weeye waxay kala bilaabeen xilliyada shaqada ay bilowday 91dii iyo 2001dii iyo waxay kala bilaabeen sanadkii 2002dii dadkan halkan aad u jeedo waa dad qurbo jooga oo dib u soo laabtay dalkii halkaa wax ka dambe waxaa kaaga muuqda sunka wareega qaybta waa qaybta muwaadiniinta qaybta waa qaybta ajaanibta oo laga hubiyo baasaboorradooda iyo socdaalkoodu inay sharci kusoo galeen iyo sharci ku baxeen haddaba waxaa casri laga dhigay goobaha caanka ah sida qaybtan waa qaybta muwaadiniinta oo ay kusoo Somaliland qof walba Somaliland oo muwaadina inuu aadan cadde airport
uu waxaweye kaga socdaalo kagana soo galo, sharcina ku baxo sharcina kusoo galo, laguna hubiyo inay sharci ku baxayaan iyo inay sharci kusoo galeen. hase ahaatee halkan waxaa checkingham iyo hay-adda socdaalku ay dib u adkeysay shilkii diyaaradda daalo kadib in security-gu uu aada u adag yahay oo si aadana loo hubiyo dadka socdaalaya, kuwa soo galaya iyo kuwa baxaya, iyo inay sharci fiisa kusoo galeen iyo inay sharci fiisa ku baxayaan intaba. qaybaha xagga boorsooyinka waxaa dib habeen lagu sameeyey suunkan oo u sahlaya inuu u wareejiyo qofka boorsadiisa uuna ku helo ilaa uu ka qaato qofkii lahaa boorsadiisa. waa jiraan dadka cabanaya oo maaragtay boorsooyin wax lamid ay ka dhumaan kadibna loo helo. suunkan wuxuu u sahlayaa qofka inuu boorsadiisa halkan ugu wareegto, qaybta kalena uu ka qaato. qaybtan waxay micno u sahlaysaa qof walba inuu boorsadiisa halkaa uu checkinka mariyo kadib si uu ugu sii qaato ugana la soo dego labada midiiba uu rabo. waxay dadkan soo degay ugu baaqeen dadka qurbo joogta Soomaaliyeed inay dalka soo booqdaan kana qayb qaataan wax walba oo asaasiya, adeegyada asaasiga ee dadku u baahan yahay kamid yihiin. kan waa muwaadin Soomaaliyeed oo ka lumeen 3 boorsooyin. 3diisi boorso ilaa hadda wuxuu sheegay sidoo hadalka u dhigay inaanu helin, oo uu raadinayo ama uu maaragtay challenge ku sameyn doono goobtii uu ka yimid ama hay-adda markuu bandhigo si ay ugu soo hesho 3 boorso ka lumay. run ahaantii waa casri oo waxyaabaha hadda maaragtay meesha ka muuqda waa qalabo casri ah oo qof walba adeega asaasiga xaq u leeyahay uu si wanaagsan uga qaato, si wanaagsanna uga sii gudbo. tani waa diyaaradaha kamida ka howlgala ee Turkish Airways, iyaduna waxa ay socdaalkeeda ka bilowday magaalada Muqdisho iyo guud ahaan goobo kamid ah dalka Soomaaliya. waa sidaad ogsoontihiin waxay leedahay 60 airport ama 60 gago oo diyaarad goobaha airportada ay diyaaraduhu ay kusoo degaan oo kala duwan. 7 kamid ayaa waxa ay yihiin laami ama airporto caalami ah. saad u aragtaan gegadan Aadan Cadde Airport waa tan ugu weyn guud ahaan dalka Soomaaliya. wasiirada qaar iyo mas'uuliyiinta iyo hay'adaha amnigu waxay mar walba sheegaan in ay maaragtay dadka qurbo joogta dalka soo booqdaan, ay maal gashadaan, ay maaragtay wax walba hadda ay sidii caadiga ahayd normaalka ay yihiin. 7 kamid 60ka airport ee Soomaaliya ka jira ayaa kaliya laami ah. inta kale waa jay ama raf saad u taqaanaan. mas-uuliyiinta hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya waxay kormeer mararka qaar ku sameeyaan garoomada caalamiga ah uu ka mid yahay Aadan Cabdulle Airport. waxyaabaha adeegyada asaasiga loo baahan yahay inay dhammaystirmaan oo si walba maaragtay wixii loogu baahan yahay ay u howlgalaan. diyaaradaha ka howlgala dalka Soomaaliya waxaa ka mid ah Juba Airways, Somali Airlines iyo diyaarado kale oo tiro badan oo Turkish Airlines ka mid tahay, Ethiopia Airlines ka mid tahay, Kenya ka mid tahay. kuwan caalamiga ah iyo kuwan maaragtay dawliga ah intaba. kuwan waa mas-uuliyiin ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha socdaalka oo kormeer ku sameeyay gegada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Aadan Cabdulle Airport. kadib waxay kormeerkaas ay kusoo qaateen waxyaabaha adeega asaasiga ee bulshada u baahan tahay ee mar walba daruuriga ah si loo xoojiyo ammaanka iyo isu socodka guud ahaan dalka iyo dibadda intaba. dadkan isugu soo meesha yimid ee mar walba maaragtay ka qayb qaata waxyaabaha daruuriga ah iyo socdaalada caalamiga ah waa bulshooyinka Soomaaliyeed oo dalka dib ugu soo laabanaya kadib markii ay dib maaragtay ay qaxitaankii dalka ay ka baxeen sanadii 1991 iyo dad kale ka shaqeeya iyo dad kale booqasho ku yimaada iyo kuwa hay'adaha caalamiga u shaqeeya ee yimaada dalka. qaybta ka dambeysa waa qaybta lagu kantaroolo ama bus control loo yaqaan oo lagu
jeegarayo dadka baasaboorradooda, ka muwaadinka ah iyo qofka ajaanibka ah intaba. Duulimaadyadu sida caadiga ah hadda waxa ay halkan kaaga muuqdo shaashadan goobaha iyo magaalooyinka dalka Soomaaliya guud ahaan ay u kala baxaan. Dhoofka xoolaha nool waa dhaqaalaha tiirka koowaad ee dalka Soomaaliya. Waa qayb ka mid ah dhaqaalaha dalku uu ku xidhan yahay tan iyo markii dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya ay burburtay sanadkii 1991. Xoolaha nool waxaad meesha tan ku aragtaan waa dekedda saylada caalamiga ee magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland ee gobolka Bari. Xoolaha ugu badan ee dekedan laga dhoofiyo waa adhigaasi iyo geela iyo lo'da iyo inta xoolaha nool ay ka tirsan yihiin guud ahaan. Goobtan waa qaybta lagu hubiyo caafimaadka xoolaha, iyadoo caafimaadkooda la hubin lama dhoofiyo, waxaana qaada doonyo badan ama maraakiib iyo doonyo badan oo isugu jira in lagu dhoofiyo xoolaha nool. Xoolaha nool waa tiirka labaad ee dhaqaalaha dalka, waxaana loo iibgeeyaa dalalka Carabaha sida Sacuudi Carabiya, Yemen iyo Cumaan iyo dalal kale. Haddaba saad halkan ku aragtaan, xooluhu waxa ay maraan caafimaadka kadib baa waxaa lagu dhoofiyaa dekedda maraakiib iyo iyadoo lagu daabulayo waxyaabo kala duwan. Dhaqaalaha labaad ee dalka ayaa wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool. Xoolahan waxaa laga sameeyaa haragooda, kabaha, boorsooyinka iyo waxyaalo lamid ah, iyo hilibkooda oo raashin ahaan loo cuno. Caanaha iyo shirkadaha qaarna waxay ka sameeyaan caanaha geela in ay suuqa u iibgeeyaan iyo waxyaalo lamid ah. Haddaba dhaqaaluhu waxa uu mar walba ku sii tiirsan yahay xoolaha nool, sii kordhintooda iyo kobcinta, iyo caanaha iyo adeegga. Halkan waa hargaha. Hargahan waxaa shirkad ku taalla magaalada Boosaaso ay ka sameysaa adeegyo kala duwan. Caanaha iyo waxyaabo kalena waxay u iibgeysaa magaalada, halkaasoo bulshaduna kaga faa'iideystaan. Sayladan waa saylad aad u weyn, waxay ku taallaa magaalada Boosaaso. Xoolaha nool ee laga dhoofiyana waxay ka baxaan dekedda magaalada, halkaasoo laga saaro maraakiib iyo doonyo kala duwan oo loo iibgeeyo wadamada dalka Bariga Dhexe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa hagaag daawadayaal, kulanti dambe iyo qodobada ku xiga waxaan idin rajeynayaa nabadgelyo.